في أحد الغزوات النبي وبحجر صلى الله عليه وسلم غزوة كمدة أي النبي الصحابة كل رجال يجري سفرك ونقول دريا هاي سهيدنا ويكوبنت هاي نين ولو بالمانت واحد الله بحكرت اللبح عمر بن الخطاب مالين تامركم مغلي وحي كسر دعدي بود مالين أنا نقول عن أبو بكر كجبرونه مركزان إسري والله إن بعد أبو بكر اسكت ده إن خيرك وقبض السيد كبض كري ويده ما أنت فرصة هالشيء واتكبضين سامانت وفرصة عمر وهيستوى محي أبو بكرنا وفقير وأمرك مدينة لو سوى هجرده ودقالة وما هيست أبو بكر عمرنا وانين مال قبين وهو قناع سبولي حي بركاس النبي صلى الله عليه وسلم صحابة ديسا نول بوحوا بحينا ويدينا يا وليبنا ما أنت هذا ما حد بحسي يا رسول الله أنت أصلا نيف بان كان أنا ما شاء الله كقاضي وردنا ما حد كنت أنا أنت أصلا أريان كان كقاضي وردنا ما حد كنت أنت أصلا نبان أنا نقول سعيد وذا كان يا كقاضي عمر أو سعود أمريكا يمدي رجي كهر يا عمر وحنا نبي ويدينا يي وحي الله بحين بويديي لكن عمر بن الخطاب نبي يقول سؤال عجيب ويدي وحو كيري يا عمر ريركاغا maxaad uga timid bali sheeg buu yiri ماذا ابقيت لاهلك صحابته intii kale dhan waxa la weydiiyay waxay keeneen in la baxayaan laakiin Umar wuxuu nabigu weydiiyay xaad maanta Umar oo adiguna sid maxaad reerkaaga uga timid bali sheeg markaasuu yiri intan aan wado in la eego baan uga imiday buu yiri مثال هان كسو قادن بقول كون هايستا او كنتم كون كاني كنتم كون ريركيبو uga yimiday zaman koodaas masaariifta reeraha waxay ku bixiyaan baa la yiri way isma sheegi jirin laana Umar haduu sheegi lahaa كنتم كون reeraha uga yimiday nuqsaan baa Umar halka kaga muuqan lahayd noloshiisa waayo waxa la ogaan lahaa ما ماشى أصحاب رسول الله هنا أي دقح علوش وقول حرنا يا أهل السفينة حبت تمر أي كل عنتين يا أيو عمر حولين تالك غير كيس كودا حيستا هل كان نقصان بك سوق له عمر دين تيس لذلك عمر مشي نقول أنت نان وضو إلا مدى بان وقاي مديبو للرير كيجي مثال هنا بقولكم بيعيد كنا كان كنت الله علي أبو بكرنا وحى وكان يا ما بجرت وفقير عمر isagu wuxuu filayay in la yiraahdo maxaad keentay uraado kontonkum baa keenay Abu Bakar oo adiguna maxaad keentay waxa ma haysta nabi Allah oo maanta de Umar yiraahdo Abu Bakar adaa ka badiya maanta waad fahamtay ma malayn laakiin su'aashi nabigu waxay u dhacday sidan maada abqayta li ahlaka ya Umar reerahaaga maxaad uga timiday intan aan wado in la ag baan uga yimiday buuli intan marka lama weydiin sheeg lama oran intan mana sheegi karo inta reerka la weydiiyay intiina ma sheegin oo xishoodo يا رسول أنت أنا كان إن لا يقوم بنوعي مدده أبو بكر والسعودة يمدوا يدي يا رسول الله أبو بكر أنا ريرك كم حاضر قتل مد الشيء وعد إلهي رسول كسان وقي مدي بودي بلا مصاريف بلا وحبة مركب النبي قال يا عمر وقص له حكوا يا عمر لبدي الناس صدقة أنت لبدي الناس هذا اللي أنت قلنا حيسا أيا درجة دينا جنة قلنا حيسا ورسولك كويدي ومالك عمر يري هديت لما أنت كذب بيز أبي بكر دم والله ترتمى يا ويهرب يقولي هذا فهمتين ما نقول تنافس وصارعوا وسابقوا فليتنافس المتنافسون بإلهي صارعوا الدنيا ده مركز الله نقلها الله يا إلهي وحده فمشوا في مناكبها أصعد الدنيا أصعد صعد هو صدر صعد واتقنا ذكرك إلهينا فاسعوا إلى ذكر الله سعي قبال ليري وصعدك كسر رأي وأودك دقة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون تنافس كنا ومحي وترتم laba qof oo sharad halka loo dhigay oo tartamaysa say u kala badiyaan
jannada marka laga hadlaayo laba nin oo sharad loo dhigay siday u baratamaan baa ilaahay yidhi u soo baratamaan baa ilaahay yidhi laakiin ilaahay xaggiisa marka la yidhina waxaa la yidhi fafiruu ila allah firaarku waa maxay nin liba xiriinaya ka warrama laba nin oo sharatamaysa oo sharad halkaa loo dhigo baratamaysa iyo nin liba xiriinaya ma iska orod baa orkee orod badan inaku dadkeena zamankan baa la yidhi fafiruu ila dunya adduunyadii baa loo ordayaa maanta diin markay noqotona famshuu waa u soconnaa waan tukadaay maxaa laga rabaa buu ku odhan wax salaada ka badan baa jira adduunyada u socaa lagaa yidhi ilaahay xaggiisana waxaa lagaa yidhi fafiruu firaar ka firaarika min alasad sida libaax naftaada aad uga badbaadin lahayd naarta jahannama uga badbaadi baa lagu leeyahay adduunyada uga badbaadi adduunyada u kala badin mayno aakhiradan u kala badinaynaa camalka wanaagsan baan u kala badinaynaa ilaahay u dhawaashihiisaan u kala badinaynaa jannadaan u kala badinaynaa fastabiquu lkhayraat khayrka u soo kala badiya baa ilaahay leeyahay khayrka u soo kala badaya marka adduunyada waa inaad tidhaahdaa war inta ilaahay qadaray baan anigu aan haystaa ma dhaafin karo walaalkayna intan uu haysto ilaahay baa u qadaray waan u haneeyey laa xasada ilaa fi ithnatayni baa nebigu yidhi xasadka diinteennu ogoshahay waa laba shay keliya laba shay unbaa qofku odhan karaa allama anigana ilaahay sidaa iga dhigo laba unbaa la kantaa buu nebigu yidhi waa labadee kamashadu laba unbay u bannaan tahay qof ilaahay dhaqaalo uu siiyey oo dhaqaalihiisii meel fiican ku bixinaya markaad aragto iyo qof ilaahay qur'aan uu baray oo saacada habeenka kamida quraanka isla taagayo akhrinaya hadaad aragto labada un baa la oran karaa allah ilaahu maad anigana sida iga dhigtid sidoodaas oo kale anigu aan khayrka ugu badin lahaay labada un baa qofku walaali ku kaman kara maal qabeen meel fiican ku bixinaya xoolihiisi miskiid buu ku dhisaya madaaristu ku dhisaya makaatib buu ku furaya aytaamtu wax siinaya masaakiintu ku nafaqaynaya culimadu ku ikraamaya khalqiga ilaahay buu ugu adeegaya ka wala tamanin kara tamanni baa la oranayaa ilaahu nicmada maxaad u siisay ka soo qaad maaha ma sidiisa ilaahu iga dhigtid weeyaan hadaadii anigana xoolo isiin lahayd sidiisoo kala noqon lahaa oo khayrka ku bixin lahaa weeyaan iyo nin qaariyo quraan ilaahay oo baray oo saacadaha habeenkii kamida intuu ka ilaahay baryaya marka khayrkeena nu tartana diyaar ma u nahay insha Allah dhahad